قلبيت كموضو فوت دعب لمودو فرحة لو جلي عاد في ردي دا السيدنقو هبلها وفي الروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن إذ الكيد مركزتو أجوكتان iyo si kasto codkeena iyo muuqaalkeena idiin soo gaaray ku soo dhawaada page-ka YouTube-ka ee Miskimaanka Official oo markaasi sheekooyin iyo qisooyin kala duwan aad kala socotaan iyo riwaayado. Hadda waxaad ku soo dhawaataan sheekadii Hami Caashiq iyo waliba Hungo Been ah qaybteeda koobaad waxaana qoray Cabdisalaan Macalin Xirsi. waxayna ku bilaabanaysaa sida tan wiil iyo gabar dhalinyaro ah oo la kala yiraahdo Axmed iyo Nasr ayaa waxay isku barteen mid kamid ah baraha bulshada ay aad u adeegsadaan gaar ahaan Facebook-ga. wiilka iyo gabadha ayaa waxa in muddo ay ka wada sheekaysan jireen arrimo guud iyadoo aysan jirin arrimo gaar ah amaba hasaawo ka dhaxeeyay labadaasi ruux. Axmed iyo Nasr waxay ahaayeen laba qofood oo aad isku tixgeliya kana dhaxayso xushmad walaaltinimo oo waliba gobonnimo ay ku dheehan tahay. had iyo gooraale waxay ahaayeen kuwa isku muujiya qadarin iyo qiimeyn dheeraad ah. waxa ayna mid walba midka kale uu tusiyay sida uu agtiisa milgaha iyo muunada ugu leeyahay. waxa ay meertada socotaba maalin ay tiigsato habeenba habeen ay caraabiso. ugu dambeyn waxa ay noqdeen kuwo qatimay in ay sheekaystaan waxaana yimid danayn badan iyo waliba xiisab ka badan sidii hore. qof walba waxa uu isweydiiyaa in uu arrinkiisa uu ka duwan yahay sidii hore waxaana la dhararaba muddo ayaa la kala maqan yahay. waa la isku boholyoobay si ka duwan sidii hore. waxa uu xaalka sidaasi ahaadaba arrinkuna uu sidaa ku socdo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa Axmed ayaa dareenkii ku batay waana sida dhaqanka ah had iyo goorba sheekada soo bandhigida raggu ku dhiiradaan. waxa uu Axmed u soo bandhigay Nasro kana codsaday in uu xiriirka hore ee walaaltinimo xiriir ka duwan oo hasaabo ay wadaagaan. arrinkaasi waa mid inta badan yimaada xiriirka iyo barashada lab iyo dhadig inta badan hadday isdhex galaan ayuu yimaadaa. wiilka mar walba waa sahan waxa uuna sahan u yahay naftiisa halka geediga noloshiisa uu ku furan lahaa gurineegi iyo waliba barwaaqo iyo guul. gabartuna nafteeda waa sahan waxayna baadigoobaysaa saldhigga nolosheeda iyo halkii nolosheeda ay ku dhammaysan lahayd. Axmed Hilaadi waxa uu bilaabay laac iyo deegaan qurxoon oo naftiisa uu ku xulan doono inta nolosha ka dhiman. waxa uu istusay in dareenkiisa uu la wadaago Nasro kana codsado in ay xiriir yeeshaan iyo hasaawe kaasi oo gogol xaaraya noloshooda dambe iyo ayahooda. waa sida inta badan dhacdee arrintan Nasro waa ay soo dhaweysay waxa ayna noqotay mid dhiirigelisa gacalka cusub iyo waliba aasaaska loo dhigay iyo abuurka cusub ee lagu dhaashanayo beerta jacaylka. waxaa lagu heshiiyey in abuurka cusub ee lagu dhaashaday beerta jacaylka ay wadaagaan kana miro dhaliyaan si siman oo dheelitiran. arrintaasi si kalsooni iyo niyad sami loo wajaho taasi oo la isku afgartay. qof walibana waxa uu dhankiisa muujiyey daacadnimo iyo rabitaan xad dhaaf ah. waana sida ay dhalinyaradu u badan tahay oo xiisaha keena in ay wax walba si qurxoon loo dhigo marka hore si qof walba qof kale u soo jiito. aanba iraahdee aadanaha oo dhan ayaa si xiiso leh wax walba oo cusub u soo dhaweeya waana halkudhigii oran jiray wixii cusub caalamka jecel. waxaa si wada jira loo gardaadiyey jacaylkii la isku qabay. qof waliba dhankiisa waxa uu qiray in uu ku siyaaday kuna ballaartay oo biyo dhigay qalbigiisa. daadkuna uu rogmaday sida roobka amaba fatahaadda sida webiga oo shabeelle oo kale. qof walba qofka kale waa isi siiyey oo isku dhiibay naftiisana uu u huray una sheegay in sidaasi loo wada wadaago. haddaba kaftanno kala duwan ayaa la isweydaarsaday oo ka duwan kuwii hore. sheekadu dhiindhiin macaan ayay noqotay. badweyn jacayl ayaa la wada galay. dareenkan ayaa ahaa mid muujinaya heerka rabitaanka ee Axmed oo ahaa mid u taagan sidii wax aadana ah oo wax u raadsho siyaabaha ugu qotada dheer.
waxa uu kaloo uu ka dhex muuqday sida sahankiisu uu yahay mid diiran inuu u sahay iyo agab qaato. Axmed waxaa cad inuu danaynayo Nasro, dhankiisana ay tahay qof markaas laga maarmaan u ah. dadka waaye aragga ay ku xeeldheer jacaylka ayaa dhaha haddii qofka uu noqdo laga maarmaan iyo lama huraan maalin walba sunta jacaylka ku dhibacday. waxaa Nasro ay ogaatay heerka uu taagan yahay Axmed, waxa uuna dhankiisa geliyey rajo iyo filasho weyn, waxaana qalbigiisa gashay in Axmed iyadu ay ka fikirto oo ay diyaar u tahay ilaalinteeda iyo weliba qoto dheeraanteeda. waxaana sida ay ahaataba wiilku waxa uu rabay in aysan gabadha wanaagga iyo dadnimada dhammaysatay aysan si fudud farihiisa uga bixin. waxaa hadda Axmed aad u baadigoobaya ogolaanshaha dhan walba oo ku saabsan nolosha Nasro, waayo markii hore intuu ogaa oo nafteeda ah waa ay ku koobnayd marka laga reebo kaftanka guud iyo in qof walba qofka kale uu ogol yahay meesha uu ku nool yahay. Axmed waxa uu weydiiyey isaga oo kaftamaya, horta weligay kuma weydiine ma dhabbaa inaad dhalatay 1998 sida ku qoran boggeeda Facebooka, mise intaasi waa ka weyn tahay? waa la qoslay, waxa ayna tiri maxaa da'deeda ku falaysaa? sow dabeecadeyda iyo muuqaalkayga kuma aadan qancin, mise waxaad is leedahay waa ay kaa weyn tahay? haddana mar kale ayay si wada jir ah loo wada qoslay. sheekadii waxay hadba dhinac loo daadihiyaba waa la isla wada keenay. Nasro hadalkii gacaliyaheeda waxa uu ahaa mid xiise geliyey, wayna soo dhoweysay waxyaabo badan oo jeclaan lahayd in mustaqbalka heshana way u sheegtay, oo ay ugu horreyso in ay asaga hesho farxadda ay kula noolaato. sidoo kaleetana waxa ay sheegtay inay aad u neceb tahay in been loo sheego, weliba gacaliyaheeda ayay ku xijisay, wayna uga digtay. waxay tiri haddaad iga ilaalinayso been, runna aad ii sheegayso, gacanteeda ayaan ku jiraa. balse hadalka intiisa dambe ee weydiinta ku biyashabatay gabadha in la weydiiyo ma jeclayn, laakiin way u sheegtay, wayna go'aansatay da'deeda. Axmed oo ka helay sida ay ugu warcelisay, haddana ogolaaday in ay beenta neceb tahay. Axmed ayaa yidhi, Nasraay, been in aan sheego waa nebcahay, in la ii sheegana waa nebcahay, mana dhacayso sabab aan been kuugu sheego, waayo kalsooni walba waa ay burburaysaa been iyo ballan xumaata. intaa ayay hadalka dhammeeyey kuna soo gaabiyey. gabdhuhu inay dhibsadaan da'dooda la qariyo ceeb kuma ahan. hawraar baa tiri nin mushahaarkiis ha weydiinin, gabarna da'deeda ha weydiinin, balse wiilka ayaa islahaa qofta da'deeda ogow. wiilka da'dii loo sheegay ayaa meel ku qortay si uusan u gafin amaba u ilaawin. keligay ayaa qoslay, waxa uuna niyadda iska yidhi sawtii ragga Soomaalida ay jeclaayeen gabar ugu yaraan 5 sano ka yar. gabartan waxaadba tihiin isku ayni amaba isku fil, maadaama aad isku sanad dhalateen. waa laba qof oo meel wada joogin isna arag, waxa ayna sidii caadad ahayd halkii ka wateen xiriirkoodii ku dhisnaa isfahanka ee ku salaysnaa is-arag la'aanta. qoraalka iyo fariimaha u badnaa, hilowgii iyo kalsoonidii waa badatay. waxaa la isku maqli jiray oo haatani fariimihii qoraalka waa laga beddeshay oo cod ayaa loo gudbay iyo muuqaal. maalinba maalintii ka dambaysay xiriirkooda waa uu sii lixaadsaday, waxaana la gaaray heer la isku qarwo, waxaana kordhay xiisihii, waxaana xaalkooda uu gaaray in marka daqiiqad laysmoogaadaba ubax la isku daadihiyo erayo jacayl. markaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weeyo weymadoodii, miyirkii bay la tagtee meeday iman qaadee meeday. waa erayo jacayl. axmed waxa uu indha sarcaaday oo la ashqaraaray waa quruxda iyo weliba maalka eebba u dhaliyey Nasro. ka sokow dabeecaddeeda iyo dhaqanka wanaagsanayd, waxay ahayd mid bili iyo weliba bilic isku raacday. hubqaadkeeda iyo weliba iyo heesaheeduna ay isku dhigan yihiin.
axmed iyada oo muuqata ma uu arakin sawirkeeda ayuu eegi jiray oo keliya axmed waxa uu mar walba naftiisa u sheegi jiray in aysan jirin qof u qalma amaba kula tartami karo quruxda waa qalbi wax jecel iyo weliba hasaawihiise arrintani waa mid dadka dhami ay ka siman yihiin marka rag wax calmado waa tii maahmaahdu lahayd nin walba miduu calmado waa u cambaraluul axmed isma oran mana jirin cid ka dhaadhicin karta gabar ka qurux badan ayaa jirta heesaha jacaylka ayaa sii bilaabmay weli hooye ma aysan dhalin hobayna mid kula mida looma qaadin xaqiiqdii mid kula mid ah weli lama xambaarine xuural cayn la moodiyey weli dhaban mid kula mid ah kama dhalan adduunkee dumar ugu filroonay dayax 15 dahab lagu mataaliyey da'do 17 mudantii haweenkay marwadii la sheegay dadku wada majiirtay dumar lama mid dhigee muxubbada galgacal ruux dumaro aad midaawado yuusuf dabadeed ayaan saaki daalacay heesaas iyo kuwa badan ayuu ku caweyn jiray naftiisa ku maaweelin jiray isaga oo dareen hal abuur iyo weliba hoballada heesaha qaada la qaba waana dhab in dadku isku wax wada jeclaadaan isku qofna wada jeclaanin waxayna xaaladdu sidaas ahaataba maalin ayaa gabadhii wiilku u sheegtay arrin uusan wiilku jeclaysan haddaba la soco qaybta labaad ee sheekada hami caashiq iyo hungabeenaha qaybteeda labaad qalbeedka muuqdo wadadaab la moodo farxad lagu jaleecay firadayda sidan qabo hablaha ugu filroon